Faa'iidooyinka caafimaad ee mooska: Kantaroolidda heerka dhiig-karka. Baaritaan la sameeyay ayaa lagu sheegay in potassium-ka ku jira mooska uu ilaaliyo heerka cadaadiska dhiigga. Cunidda mooska waxaad ka helaysaa calcium, potassium, iyo magnesium oo si joogto ah hoos u dhig u keena cadaadiska dhiigga. Kansar la dagaale. Mooska waxaa ku jirta lectins, taasoo si weyn loola xiriiriso hoos u dhigidda khataraha kansarka, haddana awoodi karta la dagaallanka kansarka. Lectin-ka geedaha oo la og yahay inuu ku dhex milmo qulqulka dhiigga, lidina ku noqdo koritaanka iyo badashada unugyada kansarka, iyo xitaa inuu kaga takhaluso. Hoos u dhigga walwalka. Moosku waa il weyn oo laga helo amino acidka tryptophan, kaasoo markii uu ku dhex milmo socdaalka dhiigga, kuna dhaxal siiya jawi deggan, una beddesha dareenka mid xasilloon oo wanaagsan. U fiican boogaha. Cunitaanka mooska si joogto ah wuxuu ka hortagayaa kana ilaalinayaa caloosha boogaha. Walxaha kiimikaliska ah ee uu ka koobo moosku waxay abuuraan dhumuc ballaaran oo weyn oo ka hortaga acidka hydrochloric acid. Mooska waxaa ku jirta maadada protease inhibitor oo ah midda caloosha ka saarta bakteeriyada, taasoo sababta boogaha ama nabarrada caloosha. Awoodda vitamin. Mooska si gaar ah waxaa uga buuxa vitamin B6. Vitamin B6 wuxuu muhiim u yahay abuuritaanka hemoglobin, korna u qaada caafimaadka dhiigga. Vitamin B6 sidoo kale wuxuu si habsami leh u dhowraa heerka sonkorta dhiigga, sidoo kale wuxuu jebiyaa amino acids-yada kana soo saara antibodies, taasoo adkeysa difaaca xubnaha qofka. Siinta muujad energy oo degdeg ah. Energy-ga mooska wuxuu ka imanayaa sonkorta dabiiciga ah ee ku dhex jirta oo u beddelmaysa energy, waana sababta ah in ciyaartoyda ay cunaan mooska markay isku diyaarinayaan ciyaaraha kala duwan. Waxaa heer sare ah in mooska quraac ahaan ay u isticmaalaan carruurta iyo waayeelkaba, maadaama laga helo energy-gii loo baahnaa maalintii oo dhan. Xanuunada kelyaha. Potassium-ka ku jira mooska wuxuu nidaamiyaa isku dheelitirka dheecaannada uu kelyuhu miro, taasoo fududeysa in kelyaha aysan ka dhicin is-ciriirin, taasoo horseedaysa kaadin dhib la'aan ah iyo mugga kaadi ee uu qofku sii daayo maalintii. Caafimaadka indhaha. Mooska waa isha ugu muhiimsan ee laga helo vitamin A iyo beta-carotene, kuwaas oo horay u riixa aragga iyo caafimaadka indhaha. Maaddooyinkan waxay ilaaliyaan habdhiska si ishu u qabato nuurka, si aad u tayo badanna aad u aragtid.